Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soo dhawaada asxaabtayda qaaliga waa mar kale iyo muuqaal kaloo cusub. Fadlan muuqaalka noo sii sheer gareey oo noo like gareey si asxaab kale walaalo kale fara badan oo gaaro muuqaalkan iyo ayagana uga faa'iidaystaan. Waxaan idiin wadaa asxaabtayda qaaliga muuqaal aad u qiimo badan. Waxaan rajaynayaa in ay igala faa'iidaysan doontaan. Videogan waxa uu ku saabsan yahay dadka oo wajigooda qallalan yahay ama dry skin-ka ah. Haddii aad tahay dadkaas aad ayuu ku anfici doonaa, wax badan ayuuna kaa caawin doonaa. Sidoo kale haddii aad tahay dadka haaraha leh, haddii aad tahay dadka indhaha hoostooda madowga kule iyo bararka kule, haddii aad tahay iyadana sidoo kale aad ayuu ku caawinayaa. Wejigaada haddii uu yahay dadka tuutuubka ama laablaabka ama miinta ama gabowga, qofba sida uu yaqaano ka dareemayo, haddii tahay adigana aad ayuu ku caawinayaa oo wax badan ayaad ka faa'iidi doontaa. Waxaasoo dhan uu kaa clean gareynayaa, wuu kaa nadiifinayaa. Waa cream maasha Allah tabaarakallah dabiici ah, wax badan aad ka faa'iidi doontid. Heerbalna ah, natural ah, white-na kaaga dhigayo wejigaada ku cadeynayo. Waxyaabahaas aan idiin soo sheegay oo dhanna kaa caawinayo. Haddii ay yihiin horta wax natural ama herbal haddii yihiin, waxa ay u baahan yihiin in aad joogteyso ama aad waqti badan siiso ay u baahan tahay. Sida ay kiimikadaba ay si dhaqso ah ay kugu shaqeynayso. Waxyaabaha markay natural yihiin ama markay yihiin herbal ay yihiin, waxa ay u baahan yihiin waqti dheer in aad siiso, in aad joogteyso, in aad u sabirto ay u baahan yihiin. Waana wax la hubo oo wax difeeta ama wax dhibaato ah aan ku geysanaynin. Ilaamaha inaad caafimaad iyo qurux aad ka dhaxasho maahe. Kana la daawo muuqaalka oo nala dhammayso. Kana asxaabay hadda waxaan diyaarsanaynaa ama gudagalaynaa videogeedii insha Allah. Isla socod wanaagsan ayaan idin leeyahay. Waxaan halkan aan ku haystaa waa qaado mooska shiidan ee diyaarsan ee powder-ka ah waaye. Sidaad ujeedaanba halkaas qaado oo buuxda ayaan ku soo shubtay. Haddii aad haysatid mooska caadiga ahna waad isticmaali kartaa, wax mashaakil ma lahan. Waxa kale oo ku soo darsanayaa waxa ay tahay hal qaado oo aloe vera gel ah. Adiga ay aloe vera gel aad haysatid waad isticmaali kartaa. Aniga tan ayaan haystaa. Muhiim ahan mid aniga aan haysto inaad adigana haysato. Haddii aad haysatiin naturalka geedka laga soo gooy iyo haddii aad tu kala haysatid midii aad haysatid waad isticmaali kartaa, wax mashaakilana ma lahan. Waxa kale aan ku soo darsanayo ama aan isticmaali doono waxa ay tahay waa malab saafi ah. Halka qaado oo buuxdo oo malab ayaan isticmaalay sidaad ujeedaanba ama idinka ka muuqata halka. Insha Allah productigeeni ama kareenkeeni waxa uu ka koobnay saddexda shay ee hadda aan isticmaalay. Saddexda shayna waa saddex shay ee faa'iido fara badan leh maqaarka bini'aadankan aad ugu fiican. Haddii aad tahay alaabtan waxay aad ugu fiican tahay dadka dry skin-ka oo maqaarkooda mar walbaaba uu qallalan yahay. Way ku qoynaysaa skin-kaada, skin aad u qurux badan ayay kaaga dhigaysaa. Jileec softy aan inaba aan caadi ahayn ayay kaaga dhigaysaa. Waxa kale ay kala dagaalamayso waxa ay tahay miinta, gabowga, tuutuubka iyo laablaabka wejiga soo galo. Aad ayay kaaga caawinaysaa. Maqaarkaadana waxa ay kaaga dhigaysaa maqaar mar walbaaba aad u qurux badan, iftiin, dhalaal intaba leh. Waxa kale ay ka caawinayso waxa ay tahay haaraha. Waad aragtay dadka inta badan oo dry-ka ah waxa ay leeyihiin haara ayay leeyihiin. Haarahaas ayadana sidoo kale way ka caawinaysaa insha Allah. Waxa kale ay ka caawinayso waxa ay tahay bararka indhaha hoostooda gala iyo madowga hooska ah oo indhaha wareegooda gala. Aad ayay kaaga caawinaysaa labadaas shay iyadana. Alaabtan waa alaab dabiici ah. Maasha Allah tabaarakallah tijaabana soo martay la soo tijaabiyay. Adigana tijaabi. Waxa marka ay kiimika yihiin waad aragtay way soo dhaqsanayaan oo jirka hor ayay kala falgalayaan. Laakiin waxa marka ay yihiin wax natural ama herbal ah
waxay u baahan yihiin in aad u sabarto, waqti badanna aad siiso, joogtayso, muddo fara badanna aad isticmaasho. Marka joogtayntaas ama ku dadaalidaas aad ku dadaalaysid, adigana waxaad ka helaysaa faa'iido fara badan, caafimaad fara badan ayuu wejigaada ka dhexlayaa, quruxna waad ka dareemaysaa, caddaan dabiici ah, caddaan caafimaad leh, wax walbaaba waad ka helaysaa oo waad ka dareemaysaa. Haddii aad marka sida saxda aad u isticmaasho, joogtayso, waqti fara badanna aad siiso oo aad ku dadaasho, natiijadii markaa aad ka lahayd waad ka gaaraysaa. Laakiin 2 maalin gudaheed waxba natiijo kuma arkaysid.